magaalada Berbera ayaa ah buucad ay ku yaalaan xeryaha military ee ugu badan Soomaaliland. xeryaha military ayaa waxaa dhisay midowgii Sovieti intooda badan wana underground ku yaala dhulka hoostiisa. waxaana kamid ah qalcadaha military ee ku yaala magaalada Berbera Lamagalay, Mayaag, xerada Carbiska, xerada Guutada iyo waliba xerada Gaadiidka. dhamaantood waxa ay ku yaalaan duleedka garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera oo isna ahaa saldhigga ciidanka cirka ee midowgii Sovieti sanadihii 80-aadkii. xeryahan ayaa haddaba muddooyinkii u dambeeyay waxaa soo baxday in dhul ahaan loo kala iibsaday, arrinkan oo noqon doona fadaxadii ugu weyneed ee ka dhacday Soomaaliland, iyadoo xeryahan military qaarkoodna xilligan lagu soo wareejiyay seesas halkaasi oo dad sharci ah u samaysteen. siyaasiga Mujaahid Mustafa Maxamed Yunis ayaana maanta si waadax ah uga hadlay arrinkan isagoo fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland. waxaan ka dirayaa baaqaas oo laba meelood ku kala socda. midka koowaad madaxweynaha qaranka iyo ka labaad oo ah ganacsatada. arrinka ka hadlaya waxa weeyaan arrinka xeryaha military, xeryaha ciidamada qaranka. xeryaha ciidamada qaranku waxay astaan u yihiin jamhuuriyadda, jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland. waxa wax laga xumaadaa nin waloo ganacsataahiba inuu salaadiin soo kaxaystay, inuu waraaq soo qortay, inuu leeyahay halaysiiyo xero military. haddii aynu xeryaha militariga sidan aynu wada bixinno oo dadka shicibka ahi ama baac mushriku ay deyn waayaan xeryaha militariga, dee qaran inoo jirayaa ma jiro. qaranku wuxuu ku jiraa lambar 1 waa ciidanka qaranka, waa halkuu qaranku dugsanayo, waa wax lagaga baydhayo. xeryaha militarigu dee maaha wax musqara'a maaha, waa meeshii ay deganaayeen, waa meeshii hubka loo dhigayay, waa asadkii aynu lahayn ee qarankani lahaa aynu wada lahayn wey. baaqa koowaad waxaan u dirayaa ganacsatada ku mashquulsan in ay nin waliba uu xero ciidan la siiyo, ee reerkiisa soo abaabulaya salaadiinta, ee nin waliba xero military doonayo ayaan anigu baaqa koowaad u dirayaa. waxaan leeyahay waardaaya xeryaha militariga. wixii kale ee madaxweynaha weydiisanaysaan, maayarada weydiisanaysaan, weydiista. xeryaha militarigu waa asad qaran. dalkan dadkii xoreeyay SNM way ka nabadgaleen xeryahaasi. 25 sannadood bay xeryahaasi jiraan. SNM way ka nabadgaleen, magaalo kasta iyo deegaan kastana way ka nabadgaleen xeryaha militarigu. dayday kastoo waddanka soo maray way ka nabadgaleen. maanta oo aynu halkii ugu dambaysay marayno ictiraafku inuu harsan yahay, dee inaynu xeradii militariga baabiino oo la yidhaa aniga halaysiiyo madaxweynaha lagu qasbo oo salaadiin loo soo kaxaysto, xildhibaan loo soo kaxaysto, way arrin aad iyo aad u foolxun. waa Yaasiin Jaamac Ali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV, magaala xeebta Berbera.